بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنا ونكسن صاحبيال halkan waa channelka Gargaar Media Group. qodobada maanta aan idin haynana waxa ugu door karoon ra'iisul wasaare Khayre oo gudoomiyay kulan qayb ka ah shirka iskaashiga Soomaaliya. shirka madasha iskaashiga Soomaaliya oo maanta lagu soo gabagabeynayo magaalada caasimadda ee Muqdisho. madaxweyne Dani oo dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay hal arin kadib shirkii shalay ka furmay Muqdisho. xildhibaano Kenyan ah oo lagu eedeeyay inay haystaan dhalashada Soomaaliya. warbixin ku aadan dowladda Soomaaliya culays intee ayaa kaga imaan kara xisbiyada dalka ka jira iyo sidoo kale General Indhacade oo ka digay halis ku soo wajahan dowladda Soomaaliya. qodobadaasi iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaa daawan doontaan intaan ku guda jirno qodobada warka channelka Gargaar Media Group. haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saaro oo furo gambaleelka lana wadaag asxaabtaada kale. وحقاق إنه كوبلونه شركة مدشة إسكاشية سوماليا هيا مانتا لغو وضا إن لغو سو غبغبيو مغالة عاصمة دي مقدشو وحمالينتي لبعادة كسعودة مغالة عاصمة دي مقدشو شركة مدشة إسكاشية سوماليا ومركي ugu horeysay lagu qabanayo magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galaya wakiilo ka socda dawladaha taageero Soomaaliya iyo madax ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya. shalay oo shirka furmay ayaa waxa looga hadlayay qodobo ay ka mid ahaayeen siyaasadda dhaqaalaha iyo sidoo kale arrimaha bulshada iyadoona ay ka qayb galayeen wakiilo ka kala socda in ka badan 50 dawladood safiiro iyo sidoo kale shirkado ganacsi oo caalami ah. xubno ka socda wakiilada beesha caalamka ayaa shirka khudbado ka jeediyay waxaana ka mid ahaa wakiilka UK waxa uu su'aal ka keenay dhaqaalaha ay helaan al-shabaab iyo sidoo kale dhabayaasha ama lagu joojin karo dhaqaalahaasi oo marar badan ay soo noqdeen. halka wakiil u hadlay dawladda Faransiiska uu sheegay in caqabado kala kulmaan fulinta balamaha ay la galeen dawladda federaalka Soomaaliya sida deganaansho siyaasadeed. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale madaxweynayaasha Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaana la filayaa in shirkan maanta ay ku biiraan isla markaana ay khudbado kala duwan ay ka jeediyaan. qaar ka mid ah maamul goboleedyada sida Puntland iyo Jubbaland ayaa shirkaasi qaadacay waxaana la filayaa in shirka maanta oo Arbacaha la soo gabagabeeyo isla markaana laga soo saaro warmurtiyeed ku saabsan waxyaabihii ay ku heshiiyeen. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa gudoomiyay kulan qayb ka ah madasha iskaashiga Soomaaliya oo looga hadlayay maalgelinta horumarinta kheyraadka biyaha ee dalka. ayaa waxa uu sheegay in maalgelinta horumarinta biyuhu ay ka dhigan tahay kobcinta dhaqaalaha, sare u qaadista amniga iyo sidoo kale xasiloonida dalka iyo dhismaha kalsoonida hay'adaha dawladeeda. wakiilka qaramada midoobay James Iswam maamul goboleedka bangiga horumarinta Afrika ee arrimaha kaabayaasha dhaqaalaha madaxa bariga Afrika ee wasaaradda iskaashiga dhaqaalaha dawladda Jarmalka iyo sidoo kale agaasimaha bankiga adduunka ee Soomaaliya, Rwanda, Uganda iyo sidoo kale Kenya ayaa kulanka ka sheegay in maalgelinta kheyraadka biyaha dalka ay muhiim u tahay horumarka bulshada. xasan cali Khayre ayaa cadeeyay in 24% dadka Soomaaliyeed lagu qiyaaso 15.44 milyan ay heli karaan biyaha ay u baahan yihiin sababta la xiriirta inaysan jirin awood iyo waliba xanaan biyaha lagu soo saaro oo fududeyn karta in bulshada ay hesho biyaha ay u baahan tahay. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo u mahadceliyay deeq-bixiyaasha ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la sii joogteeyo taageeradaas si loo gaaro hadafyada la hiigsanayo oo ah in 5 sano ee soo socota ay dadka Soomaaliyeed ay helaan biyo ku filan. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa waxa uu eedeyn u jeediyay mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku bahdishay shirka Muqdisho. Saciid Cabdilaahi Dani ayaa sheegay in shirkaasi aan laga talagelin sidoo kalena shirkaasi ajendihiisa ay ku arkeen kaliya baraha bulshada. dani ayaa intaas ku daray in Puntland shirkaasi laga siiyay 5 daqiiqo khudbad ah
sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha Puntland ayaa waxa uu intaas raaciyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay isku koobtay shirka Puntland oo sida uu hadalka u dhigay hooyada federaalka aan laga talagelin shirka caalamiga ee shalay ka furmay magaalada Muqdisho. Waxa kale oo uu Dani u sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ku xadgudubtay dowlad goboleedka Jubaland oo uu sheegay in doorasho xalaal ay ka dhacday. dowladda goboleedka Puntland ayaa uu sheegay in sidaasi ay ku diiday shirka ka qaybgalkiisa maadaama uusan ahayn mid masiirkeeda iyo sidoo kale taladeeda wax laga weydiinayo. Dani ayaa shacabka gobolka Bari xalay kula hadlayay magaalada Boosaaso iyadoona oo kulankaasi la xiriiray kulan dhexmariyay madaxweynaha iyo sidoo kale dadka gobolka Bari. warbixinayeen idinkaga helaa dowladda federaalka Soomaaliya culays inta leeg ayaa kaga imaan kara xisbiyada ka jira dalka. magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa ka bilowday guluf siyaasadeed oo xoog leh kaasi oo ka dhan qorshaha dowladda Soomaaliya ee madaxda qaranka dalka ku maamulaan. gulufkan siyaasadeed waxaa hormuud u madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Shariif Sheekh Axmed waxaana qayb ka wasiiro daaha gadaashiisa ku sugan iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. isbahaysi siyaasadeed oo shalay lagu dhawaaqay Muqdisho kaasi oo ay ku midaysan yihiin in ka badan 10 xisbi ayaa durba walaac ku abuuray xafiisyada dowladda Soomaaliya. Soomaaliya ayaa la sheegay in loogu yeeray hogaamiyaal xisbi kuwaasi oo la dhacsan dowladda Soomaaliya isla markaana gaashaan u xukuumadda waxaana la filayaa in maalmaha soo socda arintan ay ka hadlaan. durba waxaa bilowday warar sheegaya in xisbiyada ay la dhacsan yihiin xukuumadda ay bilaabeen qorshe ay sharci daro ugu dhigayaan isbahaysigii shalay loogu dhawaaqay magaalada Muqdisho in Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Shariif Sheekh Axmed hogaamiyaan xisbi siyaasadeed. waa fariin muujinaysa in dowladda Soomaaliya ay wajahayso culays siyaasadeed kuwii ugu adkaa muddo 3 sano kadib. Shariif Sheekh Axmed ma ahayn mucaarad dowladda dhaliila ama sameeya shirar ka dhan waxaase la aaminsan yahay in dowladda ay sabab u noqotay in uu sii kordho mucaaradkeeda. dhammaan dadka aan la dhacsanayn shaqada dowladda waa siyaasiyiin ay fogeysay kuwaasi oo qaarkood ku jira hay'adaha dowladda sida baarlamaanka iyo kuwa kale oo ku sugan daafaha gudihiisa. Generaal Indhacade ayaa ka digay halis dowladda federaalka Soomaaliya aysan ku baraarugsaneen. waxaa soo baxaya digniino loo jeedinayo dowladda Soomaaliya taasi oo ku aadan in laga noqdo istiraatiijiyad qaldan oo lagu maamulo ciidamada Soomaaliya gaar ahaan militariga. khubarada dhanka ciidamada ayaa waxay sheegayaan in gobolka Shabeellaha Hoose ay ku dayacan yihiin kumanaan ka mid militariga Soomaaliya iyo sidoo kale qalab ciidan oo ay haystaan. Generaal Sheekh Yuusuf Siyaad Indhacade ayaa warbaahinta magaalada Muqdisho ka sheegay in al-shabaab ay ku teedsan yihiin badda iyo webiga gobolka Banaadir iyo sidoo kale Shabeellaha Hoose isla markaana ay gudaha ku jiraan ciidamada Soomaaliya. dadka yaqaanaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa dowladda federaalka Soomaaliya ay kula taliyeen in marka hore in al-shabaab laga saaro dhulka daahda ee gobolka Shabeellaha Hoose kuwaasi oo meelaha ay ka soo abaabulaan weerarada Muqdisho iyo sidoo kale saldhigyada Shabeellaha Hoose ay ku leeyihiin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo waliba ciidamada kale ee taageera ee ku sugan Soomaaliya. ugu dambeyntiina xildhibaano Kenyan ayaa lagu eedeeyay inay haystaan dhalashada Soomaaliya. iyada dhaqdhaqaaqda anshaxa iyo sidoo kale ka hortagga musuqmaasuqa oo ka jirta dalka Kenya ayaa waxa ay dacwada ku soo ratay 10 xildhibaan oo ka mid baarlamaanka dalka Kenya. 10kan xildhibaan ayaa lagu eedeeyay inay haystaan dhalashada Soomaaliya, Itoobiya, UK, Mareykanka, Giriiga iyo sidoo kale wadamo kale oo caalami ah. 4 ka mid xildhibaanadaasi waxa ay haystaan 2 baasaboor oo kala Soomaali iyo Kenyan. mid waxa uu isku haystaa baasaboor Kenyan Soomaali iyo Itoobiya halka inta kala soo hartana min hal baasaboor ka haystaan dalka Giriiga, Ingiriiska iyo sidoo kale Mareykanka. mid ka mid xildhibaanada liiska ku jira ee la eedeeyay ayaa beeniyay inuu haysto dhalashada waddan kale waxaana uu qoraal kooban ku yiri anigu ma haysto baasaboor waddan kale. sarkaal ka tirsan guddiga la dagaalanka musuqa ee dalka Kenya oo lagu magacaabo Yaasiin Amaro
ayaa waxa uu sheegay in ay baarayaan arrintan waxa uu xusay in xildhibaanadaasi lala xisaabtami doono qodobka 78 ee dastuurka dalka Kenya oo la meelmariyay sanadkii 2010 ayaa mamnuucay in qof kasta oo darajada dawladeed ka qabanaya Kenya uu sanaysan karin dhalashada waddan kale.